Dowladda Turkiga ayaa waxay goordhow soo saartay war cusub oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya, tababarka ay siinayaan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale garab istaagga xooggan Ankara ay u muujinayso dhigeeda Muqdisho. Ilo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga ay bilaabeen sidii ay u raadin lahaayeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada guud ee ku saabsan in laga hortago wax walba oo ku aadan dalalka diidan soo saarka kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya iyo in laga hortago dalalka ka shaqeynaya qaabka loo hor istaagi karo dalalka dowladda federaalk Soomaaliya diidaya in ay ciidankeeda awood dhammaystiran ay yeeshaan iyadoona saacadihii u dambeeyay la arkayay diyaaradaha Turkiga iyo gaadiidka casriga ee waddankaas oo qayb ka qaadanaya howlgallada kala duwan ee socda. Ilo muhiim ah ayaa inoo sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya in ay bilaabeen kulamo dhowr ah oo lagu adeegsanayo aayaha mustaqbalka shidaalka Soomaaliya iyo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk Soomaaliya. Turkiga ayaa horay waxa uu ciidanka commandoska gorgor ugu aaminay qalabka casriga ee ciidamada dalkaas ay ku howlgalaan kuwaas oo lagu arkayay ciidamadii ugu dambeeyay ee gaaray Jowhar iyo Baydhabo kuwaas oo Muqdisho ka ambabaxay qaybna ka ah howlgallada guud dowladdu ay sheegtay in amniga wadooyinka Muqdisho ku xira Jowhar oo Shabeellaha Dhexe, Hirshabeelle ah iyo Baydhabo oo Koonfur Galbeed gobolka Bayn ah iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalk Soomaaliya ay tilmaameen in hadda waxa socda dhaqdhaqaaqyadaas yihiin kuwa xoogooda diiradda lagu saarayo sidii ciidanka Soomaaliya awood buuxda oo dhammaystiran ay uga yeelan lahaayeen arrimahaasi dhaqdhaqaaqyada guud ah ee ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay wadaan. Turkiga ayaa Soomaaliya waxa uu soo diray saraakiil ciidan kuwaas oo la shaqeynaya ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya waxa ay si wada jira waa saraakiishaasi ay ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya uga wada howlgali doonaan deegaano kala duwan oo gobolada dalka iyadoona sababta iyo sirta ka dambeysan ay tahay in la gaaro hadafka ama ujeedka ugu weyn ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ka damacsan tahay arrintaasi. Ilo sirdoon ayaa dhanka kale waxay inoo sheegeen in maalmihii u dambeeyay dowladda federaalku ay waday dhaqdhaqaaqyo culus oo arrimahan ay uga jawaabayso iyadoona Muqdisho ay doonayso sidii ay iskaashiga Ankara ay u ballaarin lahayd loona soo saari lahaa shidaalka Soomaaliya ee sahminta kol hore lagu sameeyay. Dowladda Turkiga waxay sheegtay in ay kala saaran tahay marka la eego arrimaha dhanka siyaasadda Soomaaliya iyo in ay arrimaha kheyraadka dabiiciga iyo tababarka ciidamada dowladdu ay u kala duwan tahay maadaama siyaasadda ragga isku haya ay tahay mid u taal oo wax siyaasadda faraha aan kula jirin arrimaha guud ee dhanka siyaasadda laakiin ay ka shaqeynayso xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo in la soo saaro kheyraadka dabiiciga iyadoo lagu saleynayo arrimahaasi dhaqdhaqaaqyada guud ee soconaya. Dowladda Turkigu waxay dhanka kala sheegtay in gaadiidkeeda ay ugu talagashay in ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay u adeegsadaan hanaanka wanaagsan ee ah in ay qayb weyn uga qaataan dhaqdhaqaaqyada guud ee lagu sugayo amniga Soomaaliya iyo in ay dowladda Turkiga ay doonayso in lagula dagaalamo dhinacyada ka soo horjeeda dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada hubeysan sida mas'uuliyiin iyo ilo kala duwan ee xaqiijiyeen. Warbaahinta Turkiga oo saacadihii u dambeeyay guddoomiyay warbixino la xiriira cabashooyin ka imaanaya dhanka iyo xubnaha mucaaradka ayaa waxaa la sheegay in dowladda Turkigu ay sheegtay inay ka madax bannaan tahay arrimaha siyaasadda ee ka dhex jira xubnaha siyaasiyiinta ee is hor fadhiisan kara laakiin Turkiga uu ka shaqeynayo sidii uu meel u saari lahaa dalalka Soomaaliya doonaya in aanay xilligan aysan ka faa'iideysan kheyraadkeeda dabiiciga iyo macaadinta kale ciideeda iyo baddeeda ku jira. Turkigu waxa uu tilmaamay in sababaha diyaaradaha taangiyada iyo maraakiibta casriga ee Turkiga Soomaaliya loo keenay tahay in fursadaha dhanka
kheyraadka Soomaaliya lagu soo saarayo si ay Soomaalida uga faa'iideysato ay tahay, laakiin aanay ahayn mid ku xiran dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhanka siyaasadda sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu sheegay inuu wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira howlgalladaas, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan dhanka Ankara ay tilmaameen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyadaasi, taa oo keentay in xubnahan ay diiradda saarayaan sidii loo gaari lahaa hadafka ama ujeedka ugu weyn ee la xiriira in la sameeyo howlgallada guud ee arrimahaasi la xiriira. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo. Waad ku mahadsan tahay daawashadii ku xirnaanta channelkayga.